بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay tahay bishii 26 February waxaan xagan kulan guddiga khayraadka dabiiciga tamarta iyo wax soo saarka iyadoo gudanaysa waajibaadkooda golaha waxaan maanta runtii kulan la yeelanaynaa wasiirka xanaanada xoolaha iyo guddidiisa annagoo xog waraysi ku saabsan arrimaha ay wasaaradda qaranka u hayso arrimahaas oo xildhibaanada ay doonayaan runtii su'aalo inay ka weydiiyaan xagga wasaaraddu qorshaheedii iyo wixii qabatay sanadkan iyo wixii bilaan u soo socda sanadka soo socda inay wax ka weydiiyaan marka mudane wasiir adiga iyo runtii agaasimayaasha aad iyo aad baad mahadsantihiin kulankan maanta timaadeen shirkuna uu inoo furan yahay waxaan ku bilaabanaynaa runtii inaan wasiirka marka hore na siiyo warbixin qorsheyn xagga wax u marayaan iyo xagga ay wasaaraddu hawlaha ay maanta wado aniga saciid maxamed baa la yidhaha wasiirka u yeedhayna xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga horumarinta kalluumaysiga ninkana maax baa la yidhaha waa agaasimaha guud ismaaciil mire waxa weeyaan agaasimaha waaxda kalluunka farxaan qaalikaan la yidhaha waxa weeyaan agaasimaha qorsheynta ninkan cabdiqani baa la yidhaha waxa weeyaan agaasima ku-xigeenka waxaa caafimaadka xoolaha marka dee sida sharcigu yahay wada shaqaynta ka dhexaysa labada gole sidaa soo qorteen qodobka dastuurka ah artikalka 3 fariista 7 waxayna siinaysaa in iska wareysano xogaha wasaaradaha iyo hay-adaha hoos guddidiina xilkooda ka wareysataan annaguna timan soo jeedno waana wax dhici jiray horeba golayaashii horeba ay ahaan jirtay caynkaa marka haddii aan la yidhaha waxaan idiin bilaabi doonaa warbixintayadii sanadkii 2021 waxaan idinku dari doonaa ku labayn doonaa qorshaha sanadka 2022 waxaa noo qorshaysan intaa markaan idinka warbixino waxaan malaynayaa wixii idinka soo dhexbaxa su-aalaha ama wixii aanu kaba gaabinay aanan warbixinta ku soo darsan ayaa sida caadada ahayd idinkuna naga weydiin doontaa bismillahi raxmaan raxiim markii ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa waqti xun oo abaaraynu ku jiraa ilaahay abaarta inaga soo jeediyo hadda berri subaxii annaga kolle waxaan u kala haynaa barigii saddex gobole bari ee abaaru ka jiraan oo guddidu muddo ka shaqaynaysay hawlahooda inaan soo kormeerno maanta shir baa jiray madaxweyne noogu yeedhay waan ka soo fasax qaatay waxaa jiray aas ninkii janankaa dhigtay ee ciidanka asna waan ka soo fasax qaatay intaa waxaan uga jeedaa inaanay dareemin sida jirta in golaha wasiiradiida ka wareegayo marka allahuma salli calaa maxamed haddaan hawsha guda galno waa warbixintii maamul iyo shaqo ee wasaaradda 2021 wasaaraddan nin ogeyni aan ogeyn baan waxa jooga 2 sano labadii sanada tegay iyo bilahan January February muddooyinka warbixintoodii siiba sanadkii tegay iyo sanadkan qorshaha iyaga ayaan idiin sheegi doonaa haddii alla yidhaahdo marka muddada wasaaraddu waxyaabahay ku guulaysatay baan idiin ama qabatay baan idiin sheegi wasaaraddu muddada aan joogay waxaan isku taxalujiyey qof walba qaab maamul ama shaqo wixii uu khibrad u leeyahay ayuu ku shaqeeyaa wasaaradda markaan miyaan darsay muddo joogay waxyaabahan islahayn galdaloolooyin baa ka jira xagga ama caafimaadka ama kalluunka ama maamulba waan ku dadaalay inaan toosino DG-gooyinka dhinac fadhiya sanad baa sugu ila joogay DG hore markaa ila joogay allahuma salli calaa sayyidina maxamed waxaan markaa ku guulaysanay maamulkii wasaaradda 6 bilood ugu dambeeyey sanadkii naga tegey inaanu wax ka bedel
iyo dardargelin ku samayno sida ay xukuumaddan markii ay doorasho ku jirtay ku ballan qaadayna dhalinyaro fara badan oo wasaaradda joogtay oo u badan xirfadle caafimaadka inaan howlgelinay shaqaalaha wasaaraddu marka waxaan ku dadaalnay inaanu 6 gobol ee hore iyo 6dii dambe iyo degmooyinka intaba xarumo caafimaad ka furo inaanu dhakhaatiirta halkan markii hore tugnayd inta badan howlgelinno oo gobol walba aanu geyno cid degmo walba cid geyno meel waloo ay nooga furan tahay xanaano xoolaadba aanu cid geyno hadday xeebaatay meel kastoo xafiis nooga furan yahay aan geyno ayaanu ku dadaalnay himiladeedu ama higsigeeduna waxa weeye caafimaadka xoolaha iyo caafimaadka dadku waa isku mid in si looga shaqeeyo weliba caafimaadka xooluhu wuxuu kaga dhib badan yahay caafimaadka dadka xooluhu meeyaraan bay dhahnaa kuu sheegi maayo iyaga halka xanuunaysa khibrad umaad ku garanaysaa iyo symptomska dee uga warramaya neefka xoolihi dhakhtarkaa laga rabaa in waxaa ogaada marka ku-talagalkaygu waxa weeye sida adduunkuba yahay inaynu xoolaheenno lafdhabarka dhaqaalaheenna ah dawana u helno dhakhaatiirna u helno reeli joogaanba taana imika tamarteennu wadabuuxa aan samaynay dayactirka wasaaradda oo degmaysan waxaan ku samaynay xaruntii nooga samaysnayd ee caafimaadka dayactir iyo dhismayaal cusub waanu ku kordhinay muddada 21kii waxaa kaleanu wasaaraddu ka dhistay mushkiladda dhacday waxa weeye meel waloo xarun wasaaradahaydba dad ba iskaga jira ilaa goorama ilaa lascaanood ilaa eragaabo dadkiina marka ay meesha qabsadaan badan waxay moodaa inaanay dadku isku taxallujin laakiin runtaan waxaan isku taxallujiyey bal inaan xarun weyn baa burca ka dhisan oo wasaaradda xanaanadu leedahay oo ilaa 10 xafiisya magguul ka samaysan yihiin qaarna seexan jiray shaqaale seexan jireen iyo qaar xafiisyaaba badi waa la iskaga jiraa marka waxaan ka samaynay deerkaasoo dhowr goor miisaanadihii iga horreeye lagu daray oo la socodsiin kara waayo dadka soo taageen khasab baanu ku marayna deerka waxa ku xigaana waxa weeye dadka gudaha ku jira marka dambe inaanu ka saarno marka meelo loo helo ama dhul loo helo wasaaradda anagoo la kaashanayna daakhiliga iyo dowladda hoose in dhul marka loo helo la dejiyo laga saaro xafiisyada dib loo isticmaalo kuwa awdal baa lagu jiraa kuwa gabiiley baa qaar lagu jiraa kuwa ceergaabaa lagu jiraa qayb oo aan ku ballansanay dowladda hoose dowladda dhexe inaan ka saarno marka waxyaaba aan ku kordhinay baa jira iyo de kuwii hore wixii aan ka haynay aan dayactiray marka xarunta burco deerkaasaan ku wareejinay xarunta kalluumaysiga ee burco na waxaan u samaynay nidaam hawl socodsiin ayadoo iska kaashadeen wasaaradda iyo dadka ganacsatada ood weyne waxaanu ka samaynay udusana totally xarun weynoo aynu ka dhaxlay dowladdii hore aan dhisnayn oo ilaa 4 qol ahayd iyo deyrku udunsanaa marka waxaan ka samaynay ilaa 3 qol iyo deyrkii ayaan dib uga samaynay gulguleednana si leeg baanu u samaynay xarunteedii hore iyo waxaan ku darayba isma cusub aan ku daray الرقص كذلك حرفوي كذلك خاتمة كذلك لغهية وحياتي كنتها الله وزارده waxay ka dhistay xarun kalluumaysi degmada lugahaya isla markaana wasaaraddu xarunta ay dhistay ee cusbay way hawlgelisay shaqaalihii iyo qalab wixii loo baahnaa ay xarun kalluumaysi u baahnaa waanu samaynay dhismaheedii horena dayactir baanu ku samaynay iyo sida ay sheegay qalabayntii shaqaalihii waanu geynay oo meel function marka socota ayaa dhaweyd bay soo furan jiga iyo waxa kalluumaysigu oo shaqaysaa ama shaqayn jireen
daryeelka caafimaadka xoolaha wasaaraddu waxay fulisay gobollada iyo degmooyinka dalka ka fulisay barnaamij tallaal oo ka hortag ah cudurrada sambabka iyo daaweyn xoolo ayay fulisay wasaaraddu waxay tallaashay ilaa 3 milyan oo neef oo xoolo ah iyo waxay tallaashay 3 milyan oo neef oo riya ah 2 milyan 2 milyan iyo 5,419 neef oo xoolo 1,000 oo qoys oo kala duwan oo gobollada dalka oo dhan ah ayaan meel gaar ahayn ama gobol gaar wasaaraddu sidoo kale waxay daaweyn u samaysay 9 milyan waa sanadkii naga tegay 2021 9 milyan 259,127 neef oo isugu jira ari geel lo dameero iyo fardo waxay hawlgelisay wasaaraddu dhakhaatiirta wasaaradda intaa ka hawlgelisay kulley daawooyinka iyo tallaalkana waxaa naga caawinayay adfao wasaaraddu waxay tababar u furtay iyo aqoon kororsi 395 wasaaraddu waxay kaabis aqooneed siisay 487 kalkaaliye caafimaad waxay wasaaraddu gaadiid gurmad caafimaad kala geysay 9 xarumood 6 gobol oo waaweyn iyo 3 gobol oo ka mid ah gobollada labaad ee aan dalo ansixin ayaa gaadiid haysta aanu ku guuraysanay inaanu four-wheel drive gobol walba geeyay oo lagu shaqeeyo caafimaadka lagu shaqeeyo wasaaraddu waxaa kale samaysay 8 kawaan ama maslakh oo loo yaqaan oo ku kala yaal gobollada Boorame Wajaale Gabiiley Sheekh Burco Oodweyne Ergaabo waxaana lagu baarista hilibka caafimaadka hilibka dardargelin baa loo sameeyey wasaaraddu waxay kaloo hirgelisay dhismayaasha sariibadaha caanaha ee ku yaalla magaalooyinka Kalabayd iyo Gabiiley wasaaraddu waxay tirokoob ku samaysay shirkadaha daawooyinka xoolaha keena oo tiradoodu dhan tahay 240 wasaaraddu waxay sidoo kale ka hawlgashay kantaroolada ama ka hortagga xanuunka ka soo gudba xuduudaha dalka oo ay ku jiraan dalka Itoobiya, Soomaaliya iyo Djibouti transboundary diseases wax dhacda hilibba ama laga keenaa sida xagga Itoobiya ama beer iyo waxaasay keenaan beerkaan caafimaadkiisa iyo hilibkaasi iyo hilibku xitaa wuxuu yahay oo laga soo jaray waruma hayno kaambeyn wasaaradda ku qaaday goobaha laga soo galana hilib badan iyo beer iyo waxa maqasheen baa laga yaabaa marar badan ayaa la qabto oo la gubay markaad kaana caafimaadka dadka iyagoo laga daryeelayo ayaa la iska xir saaray wasaaraddu waxay u qaybisay gobollada iyo degmooyinka xarumaha caafimaadka 25 kombiyuutar oo ay ku shaqeeyaan mas'uuliyiinta halkaa joogaa si ay u soo gudbiyaan xogta xanuunada iyo tan daaweynta qodobka saddexaad waa dekedda maydh ee kalluumaysiga dekeddaasi waxay qaadatay muddo dheer ilaa 2016 hadalhaynteedu in la dhiso nasiib wanaag waxaan ku guulaysanay sanadkan 2020 in lagu daro miisaaniyaddii SDF waxaa dhimantay COVID-kii ayay ku beegantay $700,000 baa dhimay oo Ingiriis qaaranku bixin lahaa
marka wax la ma socon karto runtii madaxweynaha ka galay halgan badan waanu u geynay safaaradda ingiriiska Nairobi buu la hadlay wuxuu yiri mashruucaas wuxuu nooga taagay qaaraankiinii meela ka keentaba noo keena waa la keenay sidaasaanay ku bilaabantay dekada kalluumaysiga ama jadka mayd waxaan u marayaa meel fiican sida ka hor socota SDF-ka laga maalgelinayaa wasaaradduna hawsha qaybteeda wadaa waxaa u qaybsan jadka un bay dhisaysaa SDF laakiin xafiisyadii iyo bakaaradii iyo dayrkii dawladda iska xilsaartay oo qaadatay qaybteeda marka taasoo miisaanadii noogu jirta sanadka annaka sanadkii hore waxoogaa baa noogu jiray sanadkan waxbaa noogu jira marka iminkan dhisaankii la wadaa waxaan doonaynaa inaan bir ku bixinno oo ay marka ay dhammaato jadku xafiisyadiina iyo bakhaaradiina la helo waxaa kaloo noo diyaara ayana wasaaradda maaliyadda oo qayb ka qaadanaysa cashuurtii iyo hawsha ay ka lahayd maareynta dekedaha oo ayaana aanu doonayno inay keenaan dadkii xaggooda ka socday wasaaradda xanaanada xoolaha kalluumaysiguna ay shaqaalaheedii iyo waxeedii iminka waa joogaan taasuna waa sidaa mashruuca xoolo qaybinta number 4 wasaaraddu waxay hirgelisay mashruuc xoolo qaybineed oo dib xoolayn ah dadka danyarta ah yani IDPs-ka dadka inuu naqaano abaar waloo dhacdaa sida tan maanta ilaahay nooga sakhray dad baa ku barakaca dad baa ayaa ku caydhooba dadkaas meelay kaama beeran waxbay samaystaan marka hay-aduhu waxay bixiyaan lacag yaroo ay maxay ku sheegaan cash plus waxay yidhaahdaan dee waa dalka wada joogtaan oo taas dhaqan xumay keentay dadkiina waxba umay kordhin wax horumar umay keenin waxay keentay in ay habarta ku soo qoraan odaygii habartii isku dilaan dadka mashaqaystayaal noqdaan isku filaan waayaan halkii ka dhaqaaqi waayaan annagu hay-adaha waxaanu ku nidhi idinka aqbali mayno qolada faaba dee aad noola shaqayso oo mashruuca iminka wado aan kullinkaasaa wad ku dambeeyaan wixii aad samaynaysaan dadkaa soo barakacay dadka iyaga badanaa waxa xasladee naga hayaa ama waynu beer yar falanaya ama waynu xoolo dhaqanaya laakiin meel lagu masruufaa dadka iyaga ma haynayso oo aan dee shaqa abuur loo samayn u sameeya qofka 20 neef la siyaari ah wuu guurayaa 20kaas way isdhalayaan 3 bilood ka bacdiba wax laga yaabaa inuu sodon ku dhawaado haddii ilaahay u tarminayo muddo yarba 50 ilaa 60 buu gaaray dad badan baa ka baxay xeriya caydha dadka aan siinay xoolaha markaad qaybinaysa isdhalayaan wixii rimane turbatiroodu way kordhaysaa marka annagu xoolo qaybintaasa miisaaniyadda wasaaradana 2 sanadood ugu dambeysay ku daray miisaaniyadda maydun arag baa miisaaniyaddiisa miisaaniyadda kalluunka wasaaraddu waa 1 bilyan 1 bilyan waa $100,000 ayaa la doonaya sanadka dhan inaan ku wadno kalluunka sanadka hore $70,000 baa aad baan ugu hadlay ilaa xad wasiirka maaliyadda iyo tiimkiisa waan kala hadlay laakiin waxba may kordhin yarkeeda wixii taalkayga annaka ah waan wadwadnaa marka doonyaha aan iibinay doonyahan maxay aan kuwaynu geynay qaybinay magacooda foolfayaasha kuwa doonyada ugu ladanay xagga badda ah dadka loogu jecel yihiin ayaan u qaybinay 3 gobol ilaa zeyla ilaa mayd marka qalabayntoodii waxoodiina waan diyaarinay sanadkana waxaanu damacnay sanadkii hore aan taa ka diyaarinay sanadkana waxaanu damacnay inaan tababarkii u samayno oo miisaanadda inta yar noogu jirta aanu qaybinno oo u samayno kulli xarunta weyn ee lagu tababarayaa waa berbera facilities kale intaan dusheed ka sheega qoraal ku qoran waa arkaysaa dooyo 4 dooyood waxaana shaqayn doontaa arrintaas dooyaha badda la gelinaya waqtiga ay badda furanto mashruuca dhismaha xarunta kalluumaysiga loo haya ee wasaaradda
iyadoo maanka lagu hayo horumarinta kalluumaysiga iyo kaabayaasha kalluumaysiga wasaaraddu waxa ay hirgelisay dhismo xarunta kalluumaysiga ee lagu haya sida hoos ku cad hal qol oo baanu ka dhisnay dhismahooda ku hore ku kordhinay 2 qaboojiyaan dhignay 2 baraf dhaliyaa la geeyey hal suuli baa loo sameeyey deerna waa lagu xidhay oo lagu hayaa waxa gabagabo noogu dhow sanadooda ku sheegay ka damayd oo aan ka hirgelinay hirgelinteeda qaranku mas'uul aan uga nahay iyadoo laga kharash gareeyay sanduuqa horumarinta ee Soomaaliland wasaarahana miisaaniyadda ay noogu jirto dhismayaashii bakhaarada iyo xafiisyada sanadii sheegay lugaya waan idin sheegay jaamacadda mariniska ee berbera annagana hoos timaada waana jaamacad dowladeed marka kabka miisaaniya kabka dhaqaale ee la siiyana annagu noo soo maraa marka beri dhaweed waxay u baahdeen oo in doora ay ku hadlayeen inay helaan doon lagu tababaro dadka ardayda wax baranaya hadday mashiinka doonyaa saaran tahay oo qayb motorist ay wax baraan hadday navigationka tahay hadday dadka kale kalluumaysatada tahay ee badda la barayo marka annagii wasaaradda maaliyadda iska kaashanay arrintaa waxaanu u dalabnay doonta waa doon weyn oo badda muddo ku jiri karta oo maqsino la seexdana leh meelihii lagu kaydinayay kalluunka marka lasoo qabsana leh mashiinadiina leh marka ardaydu ay ku tababarato qaab ganacsina loo isticmaalo wixii lasoo qabto ay ka faa'iidaysto jaamacaddu oo ay ku darsato dakhligeeda marka sanadkii horaanu bilownay miisaaniyadda wax lagu daray sanadkana inbaa loogu daray laakiin lacagta horumarin baan banka uga sii qaadanay doontuna waxaan rajaynaynaa inay timaado ilaa bisha June July inay timaado India lagu soo dhiso doon cusub oo aynu dalbanay inagu xagga kalluunka waxaa jira 2 kambaniga Zakiya la yiraahdo iyo kambaniga Samtuna la yiraahdo Samtuna Fishing oo labaduba isu xil saareen inay warshado inoo sameeyaan warshado qasaca iyo processkii dhamaaya wadadii ay maraysay kalluunka processkiisa oo dhan mid baan soo siyaartay kulli Zakiya way dhowdahay 2-3 bilood ka bacdeen la furaa laga yaabaa marka kalluunka gudaha lagu isticmaalayo qayb ah iyo kala dhoofinayo intaba waa lagu diyaarinayaa marka labada kambani way noo soo socdaan annaguna wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaan wixii tasiilaad aan u samayn karaynay ama loo fidin karayay laga caban maayaan waanu la qaban haddii cashuur dhaaftay haddii wax kale tahay lacagta kabka ee miisaaniyadda dowladda ugu jirta jaamacadda waa 750 milyan ayaanu sanadkii siinaa sidaan horeba u tilmaamay xarunta kalluunka ee Zeylac ballaarin baan ku samaynay iyo kordhin dhismayaasheedii qalabna waanu geynay qaboojiyaal Zeylac dhawaan bay ka yimaadeen dhijiga iyo agaasimaha waxda kalluumaysiga waxaanu hirgelinay oo wasaaraddu hirgelisay waaxdeeda kalluumaysigu inay diiwaan geliso doonyuhu awal system hagaagsan meel ahayn system baanu u samaynay qaab lagu diiwaan geliyo diiwaangelinta ka bacdina numbers la siiyo gobollada saaxil iyo Zeylac ayaanu ka bilownay arrintaas oo xagga amnigana wax ka taraysa oo doonyaha hadda waxba marmar lagu taariibiya ama lagu qaadaa inay number yeelato inay register ahaato inaanay inoogu soo khaldamin kuwan yabantii waxaasee marmar inuu soo dhex galaa xagga amniga iyo xagga
kalluumaysiga waa iyadoo laga eegayo sanadadii 2019-2020 waxaa la howlgeliyo dadka loo qaybiyey 10 doonyood oo miisaaniyadda dowladda looga iibiyey dadka iskaashatooyinka iyo dadka badda ku jira taas waxa weeyaan intaa inaga dhammaatay sanadkii 2021 qorshaha iyaga sanadkan 2022 iyadoo lagu salaynayo miisaaniyadda iyo wixii qorshe noo yaalay waxaan ka kari karno waxaa ka mid ah qorshaha iyaga sanadkan wasaarad ahaan inaanu ka faa'iidaysano dadka jaamacadda ka soo baxaya iminka maamulkii kalluumaysiga ee ugu muhiimsanaa ee dekeda berberac gobolka saaxil waxaanu u dhiibnay nin macallinka ah jaamacadda annagoo xirfad ahaan u eegayna inuu wax ku soo biiran kara haddii alla idhaa halkan yaroo kooban waxaan doonaynaa ayana idin dul maro qorshaha iyagii sanadkii tegey oo infigarisa haddii haddaan idiin koobo qaboojiyaal baanu qaybinay talaalka xoolaha ah oo faw nagu caawiso 22 oonu degmooyinka iyo goobaha muhiimka ee dalka oo dhan solarna wata light solara dalka oo dhan gaarsiinay sababtoo dawooyinka qaar baan ka maarmayn inay helaan talaajad toosay ku jiraan sida kuwa talaalkoo kale daaweynta sidaan markii horeba idinku sheegay warbixinta xoolahaanu samaynay sanadkii tegey tirada xoolahaanu daaweynay waa 9 milyan talaalka xoolaha oo dalkao dhan laga sameeyena waa 3.7 milyan qalamaynta iyo shaybaarka xoolaha waxaa noo hirgalay 3 koobood hirgelinta iyo horumarinta xarumaha caafimaadka xoolaha waxaa noo hirgalay ilaa 2021 oo dhan ku baxsanaan meel gaar ahayd gaadiidka sanad ku sheegay markii hore 9 gaari waa idin sheegay soo waxaa ku kordhay 2 xawaas xagaa tirada guud waa hirgelinta malawa gaadiidka hore fadhiyay ayaa la goolada qaarna loo yahay qaarna loo waxaa kalaanu ololo ku qaadnay kawaanada waaweyn ee burcay iyo berbere iyo hargeysa iyo awdal gabiil waxaan leeyahay gabiilayaha goorma iyo waanu nadaafadooda ka shaqaynay waxaa kaloo la soo gudbin doonaa shaxda guud ee waaxda caafimaadka xoolaha la daweeyey waa repetitiintaasu xoolaha dhoofay baan ka bilaabaynaa sanadkii laga tegay waa 1,300,000 oo neef hargaha saamaha dhoofay 2021 waxa weeye 191 xoolaha la qalay sanadkii laga tegey 952,640 xarumaha daawada xoolaha la furay 130 tababarka dhakhaatiirta iyo kalkaalayaasha caafimaadka 828 waa naga dhanyahay saaxadda dadka idin furantay waxay su-aalahay الدنيا والدين مدن وسير iyo shaqaalaha xafiiska ama wasaaradda ugu horeeya dhiijiigu aad iyo aad baan idiga mahadnaqaynaa inaad soo ajiibtaan kulankii aan idigu yeedhnay
oo kolley daaranuun shaqada aanu hayno labadeena dhibaarminba qaranka waxaad moodaa saad adiguba carabka ku dhufatay waxoogaa in labada gole waxoogaa loo yar oo aan inta badan xurgufi jirto fahankoogu yaryahay laakiin waa wax iska suuqa une waxaas wax dee cad oo jira maaha waxaa laga wada hadlayaa waxa weeyaan dantii aan ummadda u haynay iyo shaqada aan ummadda u haynay kolley intaan ka wada dee waxaad iga weydiinaynaa waa intaas maadaama aad idinku tihiin dee fulintii oo aad idinku shaqadii gacanta inoogu haysaan su-aasheeda ugu horeysa mudane wasiir wasaaradda aad mas-uulka uga tahay qaranku waxay u haysaa qaranka laba mas-uuliyadood oo waaweyn ama waxay ka shaqaysaa laba dhibaarman oo muhiima waa xoolaha iyo kalluumaysiga haddii aan ku horeeyo xoolaha waxaan ognahay inay xooluhu yihiin lafdhabarta dhaqaale ee somalilan ku tiirsan tahay sidaas darteed waxaa muhiima daryeelka iyo ilaalinta caafimaadka xoolaha haddaba mudane wasiir maadaama aad tahay mas-uulkii ugu sarreeyey wasaaradda ma noo sheegi kartaa ama waxaan doonaa inaad noo sheegto qorshe cad oo ay wasaaraddu ka leedahay ilaalinta daryeelka caafimaadka xoolaha iyo koruqaadka caafimaad taas su-aasheeda koowaad bay noqonaysaa bismillahi raxmaan raxiim su-aasheeda labaad mudane wasiir inta badan xooluhu waxay joogaan somalilan ama dee sideedaba meelaha fogfogee miyiga waxaad noo sheegtay inay jiraan ama aad ka dhisteen dhowr iyo afartan miyaan idhaha 43 goobood oo caafimaad 47 xogaa aan haynaana waxay sheegayaan inaanay dee 23 degmo doorasho unbaaban anu ku ekaa laakiin 47 markaad ka dhigteen dee sidaad sheegaysaa waa ballaadhiseen laakiin xogaan haynaa waxay sheegayaan in aanay haba yaraatee ka jirin wax xarun caafimaada ama ku takhasusa caafimaad oo xataa ay dadka reemiyihii ama dadka xoolodhaqatadii ay la xidhiidhaan sida degmada saylac iyo lughaya oo aan ka hayo xog waxay ka cabanayeen muddo 2 bilood ka badan inay xanuunna ka jireen xanuunadaasi oo xanuunno geela iyo ku dhacaya adhiga wasaaraddu muddo dabadeed sidaan warbixinta ku hayo